kooxda fanka ee xidigaha geeska ee fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa ayaa maanta mar kale gudoomiyaha kooxda waxay u doorteen abwaankooda Xasan Saleebaan Dhuxul Laab Saalax kadib kulan ay isugu yimaadeen isla kulankaas ay maanta yeesheen waxay xubinnimadii kooxda ay kaga saareen fanaaniin ay ku jiraan Yurub Geeyo iyo Nimcan Xillaac mana aanay cadeen sababta ay kooxda uga saareen fanaaniintaas waxaase xusid mudan in fanaanada Yurub Geeyo iminka ku sugan tahay magaalada Muqdisho halka Nimcan uu muddooyinkan halkaasi joogay haddaba waxa arintaasi u sheegay warbaahinta Cabdirasaaq Xaamud Jeylaani oo kooxda u hadlay iyadoo aan gaarin muddadii xildhibaankiisa xubintii kale ee shaqada wadi kareysay oo Xasan Saleebaan Dhuxul gudoomiyihiisa ka horeeyay ayaa si culaysku u yaraado xilkana cid qaada oo gudan karta loogu helo halkaasi labadan nin xilka u kala wareejinay inta kale ma xil gudasho laa waa odayaashii kooxda waxa jira xubno iyaguna waayay xubinnimadii kooxda iyadoo sabab aan ta kooxda ahayn oo jirto oo loo aaneynaya aanay jirin laakiin isbedelada kooxda ku dhacay ka soo horjeedkeeda iyo afkaarta lagu kala duwan yahay waxa xubinnimadii ku waayay gabadh Hodan Cabdiraxmaan Leedah fanaanadii Yurub iyo Nimcan Cabdiraxmaan Xasan iyo nin Yuusuf Leedah Yuusufanad waxa kale uu sheegay in kooxda lagu soo diray fanaaniin kale lix xubnood nin Leedah Axmed Aarshe oo fanaana inan barwaaqo Leedaahdo fanaanada barwaaqo qaanjo inan asma Leedaahdo inan ugbaad Leedahay fanaanada iyo nin Maxamed Yaran Leedah kooxduna marshaalka u taqaano oo halkan fadhiya waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Axmed Wili Furunle gudoomiyaha cusub ee kooxdaasi Laab Saalax iyo afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Cige Deyr run ahaantii waxaan isla qaadanay anoo ahaa gudoomiyihii hore in hawshii aan waday iyo gudoomiyanimadii iyo maamulkii ay isqaadan waayeen kabacdi aan codsi soo jeedsaday inaan walaalahay iga aqbalaan in garanayay run ahaantii walaalkii Xasan Saleebaan Dhuxul oo uga maarmi waayay si gudoominimada ugu wareejiyo Axmed Wili aniga iga dulqaad badan xidigaha geeska la isku ma hayn karo maamul iyo muusik intaas oo dhan buu garsooro yahay haddana maxay inuu maamulkii noqdaa aad iyo aad waa nin adkeysigeeda lahaa culayska uu dareemay nin la dareensan baan ahaa hadduu culays ugu dhaciyo hadduu ku dhaco kolba kaayaga uu ku dhaco waa kii kale xidigaha geeska kelmadda ugu dambaysa leeyahay waxa weeye inta wada jirtaan ee aad wadartihiin ayaad hadalhayn iyo dacaayado iyo dhaliilo intaba helaysaan qof waliba intuu dadka ka tilmaaman yahay ayuu dheer yahay Hon Stars Band oo maanta laba kaclayntii iyo dib u habayntii ugu cuslayd intay jireen lagu sameeyay waxaan leeyahay maamulkii hore iyo maamulka dambe fanaaniintii hore fanaaniinta cusub dhammaantiin baa soo dhaweynayaa wadajirka iyo isku tiirsanida ayaa dad ku tihiin Axmed Saciid Axmed Television Cable Hargeysa